sababta iimaan mu lahayn diintaad ku farid fiiri diintaad ku farid inaad gabadha ku raacdo qurux islaam iyo lacag asaga walaalo wiil gaala wiilkiisa lagu yimid asagu ma yaqaano diinta nasiib leeda asagu laakiin wuxuu ku dhashay wadan lacag haysta taajiriina xor ah qofka khaniis noqon karo marka anigoo kale inta u imaan dilaya dadkaas sababta akhlaaq bamilihii maxamed dadka ma dili jirin maxamed wuxuu soo dhaweyn jiray khaniisiinta uu badbaadin jiray laakiin diinta fidin jiray waan u sheegay waxaan ku dhahay nabi ciise adigu aad taageertaa laakiin waa nabi آخر كم دودي بوي محمد أكون دودي أما نبعه ما شاء دين أنت سوسج تلامي وسوسجري النقطة بيقول نقطة أنا تصالح في عنها أنا الحين ناقد الله أنا الحين ناق أخلاق بفهم سبوي صارت محمد بنكيمي ما هو إذا أخلاق إذا ما أبيه تيسي قبل يجي أخلاق بدل ما واشة وبقول درس كيبشة لكن بدل محمد عشرين الدون كان وكره إذا آخر ما كان دكوا سلطان رسول الله صلى الله عليه وسلم مركي قفك محمد كأصلا مرة هو يضع النقطة وحنقول لك كعب عشاص بقولها كلها شركة لا ما مركي هوية العاي ما مركي ساق العاي ما مركي ورسقل العاي لا حنقدك قفك يقول ده الدين تقيلية وأنا قلت هاي وحسوا قاعد حدود كيجي خبيل كاين لو أما دينتا إن لا دينتا كاي كل البضمان ما يسمعني مني ولا نروح منهين حبيبي صومالي قبيل كالوين والله صومالي إلهي والله إن ها كوس دينتا إن كل وين تعربا خويلك وحو ترى ملا وحد الدنيا لو شيء بس وآخر لتيسو دينتا محمد صلى الله عليه وسلم ويلكاس حيالي lacag la ma haynin gaajo ma haynin guryo lahaa baby adduunka ku jeclaa lahaa laakiin maxaa keenay iimaan ma haysan war gaalka lagu sheegay iimaan ma lahan hadduu iimaan lahaa ya ka iimaan badan aduu sharci ku siiyay aduu gaalka lagu sheegay iimaan ma lahan aboowe sharci ku siiyay wuxuu kugu dhahay waxa tahay ka u sareyn naga mid baa tahay laakiin wuxuu u baahan yahay hanuun yar iyo akhlaaq inaad tustid markaasuu diinta la jeclaanaya laakiin aduu diinta sheeganaya haddaa bil akhlaaq tahay oo leedahay gaalka lagu sheegayo aad ku haysid dadkan gaalada maxamed baa kugu dhahay kuwa ehel kitaabka cunto la cun boowe aduu muqdisho joogtaa maybe waxaa fahasantaha aan fahasan ma fahasanid inta kaa weynahay baan kaa caqli badnahay qof muslimkaaba lagu dhahay hadduusan shantiis salaadood dukan xeeraha u lucunna ba lagu dhahay qofka muslimka nabi maxamed wuxuu faray kitaabka markaa cuntada weydi khasirha cunin laakiin cuntadooda waa cuni kartaa dadka ehel kitaabka ila kitaabka waa yaa weeye waa kuwa yeesus taageera sababta diin bay haystaan laakiin wuxuu ku leeyahay nabi maxamed adiga kawsar ah iyo adiga muxuu ahaa cumar bin sacdaawe ugu qoran wiilka adigii dhaqankii diintii nasteexo weeye maaha xoog maxamedow diintu xoog maaha xoog wadankaaga waa gurta boowaga cali maalin kasta ashaab nimankula leeg baa dadkii layanaya kuwaa ku kushihii gaalada sharciga na siisay oo guryahoodii nagu qaabilay markay wadankii naga jajabiseen ha caay ha ku sheegin gaal adoo dhaqankooda aqoonin kuma dhahaya marka wadanka soo gelaynay ma waxaa tahay israa'iil baa tahay mise waxaa tahay falastiin wuxuu ku dhahayaa soomaali waa la soconaa dhib baa ka jirta soo dhawow waxay soo dhaweeyeen qof anigoo kala fiican iyo qof adigoo kala xun maybe masaanta walaalo oo jaahilnimaduna waxa weeye waxa keenaysa qofka diintiisa iimaankiisu leegyahay ma fahantay qofku nasiib la ku dhashaa qof nasiib la inta diinta afahantay ama aan fahmaa qof nasiib la dadkii dhageysta marka hore intuu qaylin عاود خلق فهمه أنا أقول أنا خلدي فهمتي محل تكتب يقص على ويل عضان وهذا الله يملسي وحكون ده هي واحد كمان ده هي مش عكتي ما لقى دلوا بقى مش عكتي ما لقى دلوا نمو أكثر سنكرتا فهمتي لكن ورا الله قرح وضدك إنت أقوني هتبقى لنا قف إيرو يدي ناقوه نعبيه معها ويل عد شيء ما نعها نعب هذا بدله wargaale hadduu kusoo istaayo fiiri gaale hadduu xumaan kula soo istaayo wanaag u sheeg uu kaa qaadanaa laakiin hadda soomalileena anaga in adeeyan ku baa qofka adiyo maya cadaan gaalka meeqa u kala baxdaa madow u jiraa afrikaanaa jirto cadaan u kaliya gaal soomaali ka hadlayna waqtigan xaadirka ah marka cadaan dhe sababta anigu wadankayga weya norway
قال هدان دو أنا وحن مسلم دين مسلم كيسنن كوداني قال هدان وحن دين مسلم كيسنن أهل كتاب مسلم وأهل كتاب أهل كتاب كل شيء مسلم وقرآن كل شيء أنا بروح أنا دين تكبر يا هبر يموت قال الكتاب كحوي دتك كان دين تبيسو كان محمد تيسو وتي يسوع هايستا يسوع يا النبي عيسى آخر دودي وحدها يا إلهي اللي يسوى على إيجل مود كقرحة نبي عيسى تا مود كإيجل هبرير الكتاب كحوي يعني نبي عيسى إله نبي كاستله حوق سورجي نبي عيسى وحلو سورجي سكر قدك لقى قدك إذا أنت كحسوسته أنك أقال وحدنا كم أقال إنه خلنا أسيق بيبيع إنه كل شيء هو أبلعان أيقهم دفع كاني قرأت كود وحوت الصي قف كان جوارد تنو إله بقبيه وإله بتصي لكن إله مقبل جوارد إله دور تبعه بوق عليه مركزات كأوت معدين إذن كوتشاهي لو ودك إنك تشبيه هاي أسكت دينا ندك ديارها دولية وكاش شيء وكاس وكيا لكن إيمان أنا يا دان هدان هيرة هدان فخرنا هدان معنا الدنيا دي هرب مرسم هدان الجاري ما أنا مو يرجع هذا ما يصير مو يرجع كوثر وكاسي تجا يا حبيبتي ونحاول إن شاء الله. هاي حبسي أي ولا لقرحه وكبرية إياه أظن ولي وينان أظن وطن دجالة شوجا هذه قف سمعلان ترى كلامه صرت وطن نبض بشوجا نبض نوع مهم هذا مش نبض كتيرين وحتكون كرت بلاقي بقى يهوك أنا كذا كلها الله تاسو كل على الصومالي على همي سمعلان لكن هذا هو احترامه حنكون احترامه وطن كتود سنين مش النبض هالله وحي على خير مش الدجال يقرح كتيرنا مسكحين بوحكود مياه ما قرأت ولا له هذا واحد عليه صومر يعني كل شيء جاي صدق استحسن وحي صومر إن شاء الله مش تابعين دونا واحد بدل اللي قلت لك النفط هذا ما في عنده ولا له قرحه مركب معناه هذا قفك حتى كلها الله مركب واحد قياسة نروش كسرينها يا كبرية دينتا كبريسة يا كبرية تفك رجل بيتك ومد النبضة إلى كنت شخصنا هيستان النبض هل دديه هل على هيستان هل لقط هيستان أنا دحين قفك سوار كفرد ورقوي أسيا وحلو قدي بعقل جيس بس بحسابيا أنا كذا مدو ده كل شو أنا وحبرتو في الحوين أو نقول كرا مرة هاي أنا مسلم ومدو ده وحده هاي وانا عقل بدن عد كرا مرة هاي أنا مسلم هو وده كسان كهذا يا نقط كان سمير قرح كان لسه مركز بفهم سنين تذكر ما قلنا قالها كدي هاي قدي صارتو أنا محمد أدرك يسوي برجي وحقولها الشهادة إلهي وحي بسد شيء وحقولها قفك إلهي لدون تنقضة هبري ينضتك دي أنت عليها لقى أخلاق ده شعائر كذا لكن ودن كل نبض تاي ومودي إنك أصل ريان أضو وجو إنك هو صيان بس صارت محمد وضل اسمها إسلام وحكوا كل دول هاي ودن كل دول نبضة يوم حن كل هاي ما شاء الله يوم حن كل يعني أنا عن دين كهستون يقولون كهستان والدين كله هستان وياه راهيد dadkaas adduunya la sii mooyay aakhir waxba uma yaalo أبوه علي واحد يخش شيء بحيته ما أنتوا waxaan kuu sheegay maxay tahay walaalo ibadal ismaaciil xasan Allah ma sida waxyar ما يود اسفهم محمد ولا dad adduunya la sii fiirorta dad adduunya la dii dadna aakhir u shaqaysta Allah isku mid maana adigu midna ma haystid bawg cali maxaa u heesan sababtu ما شاء الله إلهي هاي هدان جو كوس ما ترجمة إن إسلام نمذ أو نسقان وتاي الشباب حاولوا تساعدوا وين الدنيا ولا لها كوب ساكين تعاون أنا كوس أنا عردها ما حاول حبرتها إن ندلكي يدلكي وحبرت عشان قلت أصلا حاولوا تساعدوا يسوق على حسن يسوق وحال هيستوي الكير بس هيستوي كوريا هوريرو هذا تحويل إسلام وفي عنطها محل مش أو قصة بلاد وإذا أرسلنا إنه كسر ويدي أنا ما أنا وضنكي نقع عيال عدانا وضنا إن شاء الله وحي هرت إلهي معنا ما أرتي يا قف كل الدونو أسي ما أدي إله وكو أرزاقها من فانت أنا هدا قف أرضية أي حدا نصبحها إن شاء الله واندفاع كرا دان وح أبرت دلكي لكن هانون جاهلة ده مو قامي كري كوس أنا بقام وحمو إيمو أرضي هدان لكن نين هدان وح برت أي أخويا أي حدوا قامي كرا وادي كرا وحس وحيم وحسوي في عين وادي كرا كوس هدان جاهلة محمدكو قامي أبو هذا الإسفهام قفك
ها qofka hadduu wax yahay aqoon-yahan yahay ma turjumayso inuu ya ma turjumayso inuu wax la baranayo ma fahanti qofka hadduu aqoon-yahan waayo inuu dadka hogaamiyaa loo baahan yahay laakiin inaga Soomaali waxa taariikhiyaana yaala ifaham kama maanta Muqdisho ka hadlayo Muqdisho waa caasimadaydi ma ka imaanay laakiin waa caasimadaydi laakiin caasimadaydaasoo dadka la jooga ma ixtiraamsana sababtoo waxa ay arkaan dad jaahil aan nahay yaa jaahilka ana ma ii jaahil laakiin waxa iga dhigaya adiga iyo adiga qalbiyan jaahilkana anay aqoon waan leenahay laakiin qalbiyan jaahilkana haddaan qalbi wax ka hadlayn aqoonyahan ka hadlayn qof maanta ya waa xuntahay oo dalkiin saas waa na dhihi lahayn ma laakiin qalbiyan jaahilkana anay haddaan soomaalinahay maya horta waynu ducaysanin haddaynu Soomaali nahay waynu ducaysanin in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dalkeena nabad inooga dhigo in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhammaanteen inta ma garanaysaa inta inaga lunsan inuu Ilaahay noo soo hanuuniyo inuu Ilaahay qalbigeena burcad isku mariyo inuu ma garanaysaa dadkeena Ilaahay mid ka dhigo waxaas oo dhan ku ducaysanin inuu dhibaata ma jirta waxa weeye xamar oo kale dhibaata ka jirta waa caasimadeeni waa magaaladeeni qof kasta oo Soomaali ka Somaliland ku nool ka Djibouti ku nool ka ma Somaliland ma caasimad waxa dadka hasareeran Somaliland way goosatay nabad bay haystaan Ilaahay u daayay maya ana hargeysan ka imid ana kula hadlay ana hargeysan ka imid hargeysan kale waa hadii ay ugu xaraaqeen moodina ayaga caynayo waxay igu dhaheen Somaliland waan goosat halo mudka gala ya Somaliland aniga kula hadlay waxaan aaminsanahay Somaliland wadan tahay anigu hargeysa waa caasimadeed laakiin waxaan kula marka yani Soomaali la yiraahdo grid Soomaaliya laga sheekaynayo Soomaaliyeed marka laga sheekaynayo kula soo laga Djibouti keenay Jigjiga keenay Gaarisa keenay maaha wixii oo dhan keenay walaal wixii oo dhan soo ka hadli maayaan Soomaali ka hadli maayo Soomaaliya ka hadli maayo waxa ka أنا Somaliland ما فاهمين وحنا ما فاهمين مرنا وحلي أنا Soomaali كجرا مرنا كمجرا هذا مالك كا ولا أنا وأنا قابل ليس عاصمة ما أميرة أنا Soomaali waan nahay laakiin waxa igu mangaar ula baxnay dooda inaga daayimka dood ma geli kareyno ما تهدين Somaliland بتهدي أنا Somaliland تينتي وين أخبشان بالكورن Somali اسكو خرا ياري Somaliland تينتي أخبلا محامي قلت حسن أنا أميرة وش جاية Somaliland وحنا قرنا يا مركز أسيسان أدو أقلاطان أدو إنه كل الدقين bay noqonayaan baasaboorka loo ogolaado markaas inaan ka go'aansanay insha Allah ما أنا هذا شعبنا مسكحنا نجليين واقابلنا أميرة waxaan kugu dhahay marka hada shicibnaya marka inagu yeelo inaga diidan ku dhagan dadka kana weyn ka goosteen oo walaalaheen bas yaa walaalaheen please dhageys ma fahmaye iyaga ay noo sameeyay calanka waagi wadanka lagu sameeyay Somaliland wayna ka tageen wayna ka danaysteen ilaahay nabad ay haystaan ha siiyo adiga ani aynu ogolaano inay yihiin wadan walaalaheena markaas ayagu indhahaya bas indhahaya Somaliland soo ogolaano meel gooste Soomaaliya ku soo labayn adiga ku hayn ku soo labayn Soomaaliland waa naga go'ay inuu soo labayn ka shaqeyn Soomaaliya mudka gal abay xafaasina waa naga weyn tamay صلاح mudka gal hooyo أنا هلا mudka gal mudka gal inuu soo labayn Soomaaliland mudka gal Somaliland way goosatay 3 sano ka hor goosatay waa nabad dadka Norwejiga way boqodaa cadaanku wuu boqodaa waxa ku dhagan ay ka foqolayeen waa adii ani baasaboorka reerka inuu deysino luqad gaar ah la soo baxaya insha Allah oo wadanka ka socota oo adii ani ogeyn laakiin oo ogeyn 3 sano ka hor way wada tashtay wada nabada ilaahay ani gaale dirtabe artisabo ma lagu fikira magaalo madaxda Soomaaliya mana ka fuqeero illa aakhir dabada ku dhiganaanayna hada Soomaalina hanay waa ku dabada garaan xanaga qaadaysi mudka gal amirana Soomaali dhulkeena waa Somaliland waa dhulkeena dhul gaar ah ma noqon waa ku dajiyay qofta ma hadlan waa dajinaya sababta kuma aqaanay ma taqaan waxaan kugu dhahay ummadda Islaameed ku dayda oo u farxa walaalkii ila dhashay ugu dhan Norway baan aan u jeedo inuu waxbarasho leeyahay aan u jeedo inaga aqal baday ma xastiyo war Norway baan dhahay hadii duucan ku ilaahay ka dhigayo laakiin insha Allah muslim taday waan dhahay maanta muslimka baxaan waan muskuman ma dhahayo waa madowdahay ma dhahayo luqad kale ku hadlaysaa no qofku wuxuu yahay lagu badhago
qofkii kaa fiicanna u ogolow ilaahay dadka ka nabadda haystaan ha siiyo waxayna kaa tegayaan muqdisho ka hadli doonin booso ka hadli doonin baran ka hadli doonin maanta aadna ixtiraamtid oo basabarkooda siisid muktada dadka walaalaha way yasan way tiraadid inta ku dhiganta iyana way kugu bashaanayaan maalin Soomaaliya maalin Soomaaliya ma dhamaysan markasta ay istajis hadalkayga sii dheeraanaya waxay dadka kan iska daa diinta iska daa dadka iska daa adigu qof kasta wuxuu kugu dhaho qaabil hay iska dheh madhibi kugu haysaa okay waxba hay ma dhahay Puntland ayagoo Puntland haystaan Soomaaliya tagaan wax ka socunaan adduunyada la saareen waa aqligooda fariidin aqligooda ku gaar smart waa laakiin Soomaaliya وإحنا وهربان ما هلايان والله هديك بدنا شرح يضوني بدنا شرح أخلي سمارت بدلانا وحي مقدشو كدانتا ما يدي شيغا وحي كدانتا مقدشو argixisada ma siiyan taageer walaalaha moodinta Soomaalidu leeyihiin wada saalimiin Puntland waxay ku fiicantaa waa ku soo noolaa marka badhanka imi Puntland ma jeclahay maxaa Puntland ku jeclahay Puntland qabiil ma yaqaana Puntland waa naaga badan yihiin guur badan yihiin af kala ma laha Puntland markuu nima jeedana yimaado ugu dhaho haddaan ka soo baxay argixisada siya madar baan unahay siya waddankeedii maamulo Norway da xayawaanka u dira waxayna tuug ma daahiray dhaha marka Puntland waa smart for weapon ma dhawaad ka goosan doona Soomaaliya Muqdisho Puntland aan gaar ah u yeelin ina ana samaysan weyn ku jira arrinkaas in Soomaaliya ka baxaa oo qabiil kala soo baxo hadda Soomaaliya ba wali in la joogo in ka tagay anaga Puntland head tagtay waay wali boonkii ma fahmin ku dashinaya dad boonkii faa wax buu qamar rabaa andana wuxuu ka hadlayaan la garanay walaalo qof kasta wuxuu yahay meeshu jooga la fadhiiso faham waxba u sheegay wax garanay aniga kula hadlay qof kasta wuxuu aaminsan yahay in loo daayo waayba صباح ولا لا حلا انت دخل صباح ويكن رحمينا ويكن صباح ولا لا أباي معنا أنا ولا حامسنا يعني قف كستوحو آمنسية هاي اللو دايرة كويس هاي وكو قاتلي وكو أقبلي دل قارا يقونيني تانوان وقاهي ما فهمتي وانا كو قاتلي أنا أهانتي هذا بيني مش غير بورمان هاي بورما سومالينا كنت حالا ما فهمتي الحمد لله صح سنك أهانتي مرك أنا اللي ويديا لي ده حاجات كتمت سومالينا ما هذا سومالينا كإما دانها لكن عاد أهانتي وحن يعني أنا أمسنا هاي يعني قف كستوحي وربا إنه نقنكره أي هذا أمسين الدلقار النقدان يا بشكو ده وانا قكرتي عيدي ده كويسة تمام يس داكتلي وابنتها كوثري وين دقيقة وان كسي سلامي ولا وان سي بحيا أبو عفي مسامح ابني يعفي ولا عفي والله شكرا جدا وياه ديك بدنا أخلي قوضا كيا يا شيء يقرأ له لا أميرة دي ملا سلامي يا كوثر أميرة أميرة يا محمد هير بريا ما بريا بكي بريا كيما هير بريا لا صدق هذا أنا ولا حسن أحمد حسين ظاهره